السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي waxaa idin leeyahay welcome to Ramala Cooking Channel. kusoo dhawaada channelkaygi. waxaa idin leeyahay subax wanaagsan, duhur wanaagsan, galab wanaagsan, haween wanaagsan, qofba xilligu u yahay. waxaan rabaa maanta inaan idin soo gudbiyo sabaayad ama chapati, hadba qofka sida uu kasaayo, maadaama aan in muddo ah aan ka maqnaa. maanta waxaa jeclaysta inaan idinla wadaago sabaayad aan ka sameeyey mashed batato shiidan. koobka ma buuxo, waa haaf koreeyo iyo baaquliga bur ah, waa burka caadiga plain flourka ahaa aan waxba ku jirin. halkan waxaan ku haystaa subag ama butter, hadba sida u kasaysiin ka soo yara dhilaaliyey. waxaan kusoo daray in yar oil ah aan kusoo daray. halkaa waxaa ku haystaa shukar, 2 qaado sokor ah, iyo qaado yar oo xabasooda ah, iyo qaado yar oo cusbo ah. insha allah intaasaa isku dardarayaa. ila socod wacan. waa kan waa baradhadii shiidneed, halkanna waa daqiiqdii. kadibna waxaan ku qasi doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo ku qasi doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo biyo yar qandac ah insha allah. subagana gadaal ayaan ka isticmaali doonaa. la socod wacan. bahalka inuu adkaado ma la rabo. mar walbaba bur markaa qasaysid ha adkeynin. haddaa adkeysid sidii la rabo ma noqonayo. daqiiqda gadaala kaga dardarsan kartaa, laakiin mar hadduu kaa adkaado jilcin kartid, burka wuu isgalayaa hadhow. insha allah si fiican aan usoo xashayaa, kadibna waa idinku soo noqon. waa kaa burkii waan xashay. subag yaraan ku daray. subaga ma wada isticmaalin, in yaraan ka qaatay saad ka aragtaan meesha. biyahana dee ada u qiyaasan karo. waxaan isticmaalay inta subaga ah iyo koob buuxa iyo inta yar subaga ah. kadibna hadduu kaa yara jilco bur ku saacidso, wax yar bur ku saacidsadi. laakiin waxaa la rabaa inuu saas noqdo si hadhow burki u kala baxbaxo. soo ma jeedin, ma adka mana jilicsana, wax daadanaya ma aha. kole sida sawaad loo xasho waa taqaaniinaya tahay. marka sidaasaa u xashaysaan insha allah. bacdaasaa lagu daboolayaa. waxaan sugaynaa ilaa iyo 40 minute iska yani meeshada ha huuro. waxaa la rabaa inuu yara qamiiro 40 daqiiqo ilaa iyo 1 hour. kadib waa usoo noqon. waan jarjaraynaa, waa fidfidinaynaa insha allah. waa dubaynaa, waan arkaysiin siduu kusoo bixi doono insha allah. waa bahal aad u macaan runtii. idinkana waa tijaabin doontaan, haddaa aragtaan waana ka heli doontaan insha allah. dee waa qurac aad iyo aad u macaan badan. isku soo noqod wacan. haddana waxaan rabnaa inuu burka inuu noo yar qamiiro ilaa iyo after 1 hour insha allah. isku soo noqonayna. assalaamu calaykum asxaabta sharafta leh. waa isku soo noqonay haddana. burkii waa after 1 hour uu qamiiray. يعني wax qamiiris uma ku darin, laakiinse waan abaar baan dhigay sida uu kala baxbaxo hadhow markaan sameynayo insha allah. haatana waa sameynaynaa oo waan fidfidinayaa. dabkaan gelinaynaa insha allah. kan waan kuuskuusay, kadibna saasaa u fidiyey. kadibna insha allah subaga dhexda ka marinaya, saasoo u marinaya. kadibna waa ku yara laalaabe. haddana waan fidinayaa insha allah. marka
insha allah waa la laabayaa kadibna waa fidin. aragtaan labada dhinacan kasoo laabay and then geesaha laga laabaya saas. haatana mar kalaan fidinayaa insha allah la socoto. waan fidiyey markaa dabka ku riday wax butter ama saliid ama aan ku shubin. horta dry inuu noqdaan rabaa qaleel noqdo. haddana dhinaca kale u rogayaa insha allah marka laba jeer rogo kadibna saliidan aan ku bilbilayaa kadibna waan push insha allah. kadibna maxaa la dhahayaa saliidda ku shubayaa ama subaga. kolay ani saliiddii subag waa isku darsaday. hadda markaan dhinacan hadda uu soo gaduuto asagana waa rogayaa wax yar subaga ku darayaa aan ku bilbilaa haddana waa gadinayaa haddana waa gaduudinayaa haddana saas insha allah. kadibna waa ka saaraynaa saas sameynaynaa soo ma jeedaan. soo qaleela marka rabaa haddana dhinacaan loo rogaya tan ujeedaa haata batarka ku shubi haddana waa la rogayaa. sabaayadeni sidaanay kusoo baxday. saas gaduudan tahay waana too soft. aada u jilicsan tahay arag say ku go-eyso. aada u jilicsan tahay way kala daadanay run ahaantii aaday u kala daadanaysaa arag. waa too soft soo ma jeedin. waa bahal aada u macaan maasha allah. way jilicsan tahay waa ka heli doontiin sinaba caadi maaha. waa ka saasay u kala go-eysaa insha allah. tii labaad saddexaad aan gashay tii labaad maanta tii saddexaad aan gashay insha allah. laba dhinac markay qaleylka noqoto iyadana sidoo kale batarka wada shubaya waa marka wada rogaya insha allah. la socotaan markaan dhameeya idin tusinaya haddana see noqoto insha allah. maasha allah tabaarakallah. sabaayadeni waa dhameynay saasay kusoo baxday. very soft waaye very soft. saasay u kala baxbaxaysaa ma jeedin. xabad aadayna u jilicsan tahay. waa bahal aada u macaan. maxaa la dhahayaa aroortii hore haddaa samaysatid oo aad ku cuntid hani iyo shaay cadeys maasha allah. wallahina you will miss every morning insha allah. waa taa saasay kusoo baxday. waa bahal macaan. hama ogaanina inaad try garaysaan. waxaan ka sameeyey xasuusnaada mash potato waxa la dhahayo aan ka sameeyey iyo bur iyo waxaan isku daray xabasooda in yar cusbaha in yar oo sokor ah. butter iyo saliid aan isku qasay oo kululeeyayna waa yacni waana ku rifaaqay waana marmariyey waana ku dubay insha allah. waxyaa kulli meesha ka arki doontaan hama ogaanina insha allah. walaalayaal waxaa idin leeyahay soo dhawaada kusoo dhawaada sabaayadeni. aniga ahaan aroortii okay fine yani in lagu cuno haniga aada u jeclaa. laakiin haddeer koosta u sameysan doonaa. koostadana sida loo sameynayo iska macruuf insha allah.
marka waxaa idin leeyahay tijaabiya waa ka heli doontaan soona dhawaada subscribe like and share kana insha Allah ku dadaala sida oo socotaan haddii goor waxyaabihii cusub oo soo baxay ama receptigii ramaala receptiga u gaarka insha Allah waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.